waxaa maanta lagu qabtay magaalada Buuqoodle isku soo bax balaaran oo lagu xuseeyay kowda Luuliya koonfurta guuradii Soomaaliya taasoo ay xornimada wada qaateen gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya munaasabadan oo lagu xuseeyay kowda Luuliya oo ka dhacday magaalada Buuqoodle ayaa waxaa ka soo qayb galay shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuqoodle xarunta gobolka Cayn mas'uuliyiinta soo qabaqabay isku soo baxan ayaa ugu horeyn halkaas ka hadlay iyagoo sheegay muhiimadda ay leedahay kowda Luuliya isu soo baxan ayaa lagu taageerayay kowda Luuliya ka hadlan mas'uuliyiinta soo qabanqaabay shirkan isla markaana way sheegeen inay muhiimad u leedahay gobolada Soomaaliya kowda Luuliya ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay Axmed Maxamuud Dolaal isagoo ku hadlayay afka mas'uuliyiinta badbaada Khaatimo waxaana hadlayay ka mid ahaa waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato waxaan kaloo rabnaa inaynu maanta halkan ku xusno kowdii Luuliya waa maalintii ay midoobeen labada gobol ee gobolka Waqooyi iyo gobolada koonfureed waa midnimadii iyo xoojintii dalkii Soomaaliya maantana kaasaan u taaganahay waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato israacdo adeerninka maanta kala goynaya waxbaan kala goynaya waa nin riyoonaya Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato maanta waa maalin weyn oo kowdii waa maalintii gobolada Soomaaliyeed Israa'iil ee midnimada la helay waxaan leenahay waa maalin weyn ciid ku dabaaldega farxad ku dabaaldega qalbi sanad ku dabaaldega intaa kadib maanta waxaa weeye Soomaaliya sanaagii camba xurnimada u dhalisay maahan ana korkeena guusha u hurnay maantana u huraynaa waanu huri doonaa waxaanu ku leenahay isimka kuu qabanay iyo baqra iyo watiin niidkaaga iyo bidhaantaada fiicana ilaahow bahora iyo baariyow ku wada bulshada ku doorata iyo baariyow ku wada bahorna doortay bishaaraanu kuu sugna Soomaaliyana ha noolaato waxaana leeyahay annagoo qaraneen ogayne inaan maanta kursi yeelno inaan qaadanayno maaha waan iskala qabweynahay inaan calankeena qarino astaanta qabiilka qaadnaa inaan qaadanayno maaha waan iskala qabweynahay iyo shirabka inaan qaadanayno maaha waan iskala qabweynahay inaan qarankayga dumiyo qabyaaladaad wada ka naaxshaa inaan qaadanayno maaha waan iskala qabweynahay munaasabadan xuska kowda Luuliya ayaa gobolada Soomaaliya xilligan oo kale si weyn looga xusaya iyadoo maanta si weyn looga xusay magaalada Buuqoodle xarunta gobolka Cayn Xuseen Xasan Timadheere telefishinka caalamiga STN magaalada Buuqoodle xarunta gobolka